أقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما أنت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. walaalayaal weli waxaynu ku jiraa bishii barakaysnayd ee khayrka badnayd ee Ramadaan marka waxaan wadnaa barnaamijyadeennii aan kaga hadli jiray nafaxaadkeeda iyo khayraadkeeda si aynu uga faa'iideysano mawaadiic yar yar oo kaliya yar yar oo maaragtay aynu ugu talagalnay bisha barakaysan ee Ramadaan aynu duubayno maanta waxaan rabnaa insha Allah taala inaan kaga hadalno soonka fadliga uu leeyahay runtii soonka markaan leenahay laba shay waa muhiim inaynu kala saaro waxaa jira soon iyo bisha barakaysan ee Ramadaan marka maxay kala yihiin dabcan bisha soon markaan leenahay iyo bisha Ramadaan markaan leenahay Ramadaan waa naqaanaa waa bisha sagaalaad ee bilaha hijriga amba qamariga loo yaqaano oo la yaqaano waa bilway oo dhalata oo aanu ka aragno cirka waxa kale oo jirta soon waxa la yiraahdo soonku waa ficil ka dhacaya oo ah yaani ficilka markaas oo u baahan in la qeexo ficilkaas wad ogtiina markii culimadeena fuqahadu ay qeexayaan waxay dhahaan soom waxa way luqatan waxa laga wadaa al-imsaaku in wax la iska dhaafo waxa wuxuu doonaa ahaado markaas waxa leedahay xagga carabiga asalka waxa leedahay sumtu anil kalaam hadalkii baan ka soomay sumtu anil mashi socodkii baan ka soomay sumtu waan iska daayay way macnaheedu walidaalika sidaas ba maryam markii ay dhashay nabi ciise alayhi salaam waxay tiri inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiyan marka sawman markay leedahay micnaheedu ma aha inay maaragtay ay raashin iska dhaaftay maxaa yeelay wahuzi ilayki bijid'i nakhlati tusaaqid alayki rudaban janiyan ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala uu yiro timir cunbaaba leeyahay marka qof sooman ma ahayn laakiin hadalka ayay iska days waxaa jirta marka soonkuna marka waa taqaaniina waa cibaado makhsuusa bimaana waa qofka muslimka inuu iska daayo huwa al-imsaaku an jami' al-muftiraat من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية العبادة معناها قفك إنه سكر وحل عنا إيو وحل عبو إيو شهودي أو هوانكي وحل لمدا من طلوع الفجر لقب الله إلى غروب الشمس لقى جارها إيو أنتاس أيها وحالي هذا أو نية اللي جرتوا عبادة أنتاس وحالي هذا الصون مركز صون كأمر رمضان هذا أمر رمضان غير كدور ربها هذا إن فضلجيس أيام رمضان وحير إن أنت عن كتر تعبنا مع الصانك وحيابها فضلجيس وحكم إذا إنه يهي جنة إنه يهي ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حيري الصوم جنة صومك وجنة أو يستجن بها العبد من النار وقاشان ويسجد يا عبد وأم بعضكم على أنت قيامها ويسجد يا سيدك النبي عليه الصلاة والسلام حيري إن في الجنة بابا يقال له الريان جنة وحكجروا يرباب oo la yiraahdo rayaan la yiraahdo magaciisa cokane yaani waa qofku markuu biyaha ka dhergo yartawi marka waxa weeye yadkhulu minhu saa'imun waxa ka galaya dadka maaragtay oo sooma ayaa ka galaya yawm al-qiyamati wala yadkhulu minhu ahad ghayrahum aw kama qaal alayhi salatu wassalam qof aan ayaga ahayn kama galayo marka taas soonkaasi marka fadligaas uu leeyahay inuu maaragtay jannadii inuu naarti uu ka xijaabo oo gaashaanka kuugu ahaado sidoo kale to xadiisu qudsiga waad garanaysiin oo kullu amal ibn aadam lah illa siyam bi nabi alayhi salatu wassalam soo xadiisu qudsi ka sheekeynaya fa innahu li wa ana ajzi bihi ilaahi wuxuu yeelay soonka ana iskale aniga ayaana abaal marinaya marka taalka waxaad ka garatay inuu fadligu soonku inuu leeyahay fadli dheeraad inuu leeyahay marka acmaasha kale waa kii xadiidkii kala ahaa kullu amal ibn aadam yudaaf عمل كستو ابن آدم أوليه والله لابا ولا جبارة الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 أيها جارسيا لاب لكن إلهي وحجر عز وجل إلا الصوم مايا فإنه لي وأنا أجزي به أنا أيها إسكال أنا أبا المرين دونا يدع شهوته وطعامه من أجلي يعني وحوي شهوتي سي يا هوان يا وحي لمدا iyo wixii uu rabo dhanba hawadiisa wuxuu rabay ayuu iska daayay min ajli aniga dartay ayuu marka isaga dhaafay marka sidaa darteed buu marka waxa halka ka garanaysaa soonka fadligiisa sawaan kana ramadaan aw ghayr ramadaan yaani fiiri amba ramadaan ha ahaado amba ramadaan ghayrkii ha ahaado marka waxa weeye ilaahay subhanahu wa ta'ala marka ay fadliga badan buu siiyay soonka waxaad garanaysiin xataa waxyaabaha fadligiisa waxa kamid inuu maalinta qiyaamaha inuu shafeeci doono oo nabiga alayhi salatu wasalaam wuxuu yiri as-siyam wal qur'an صومك يا قرآنك ويشفعاني ويشفعيان للعبد يوم القيامة ما درارت قيامة لبضوا ويشفعيان صومك واحد أكتهين إنه يهي من أعظم من أفضل الأعمال وخاصة قارهان بشهر رمضان لا أكتهين بشهر رمضان يعني صومك واحد إحدى سدعية لينقوا واجبية فرض كهايا لينقوا واجبية يا دعية
sidaa darteed baa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban qofkii ramadaan soomay asagoo rumaysan ajirna ilaahi subxaana wa tacaala ka filanaya gufira lahu maa taqadama min dembihi dembigiisa waa loo dhaafayaa marka waad garanaysiin haddana xadiidkii kale nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi lisaa'ima farxataan ninka qofka sooma wuxuu iska leeyahay laba farxadood يفرحهما وفرحه فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه يعني إلهي سبحانه وتعالى مركو الله كل مرة وفرح دونا مركو حاوي قفك إلهي درتي أصلا وحاوي نار تحت 70 خريفا بوجهي لقى فوقينا هي وحديثك كلاها إذا مركب ماشى وحن كفهني صانكو إنه سيدي سبب معنا أم بالرمضان هاتو أم بينا هانن إن لقيه لا يمحوها أنت سو أجر لقيه لا يو مركب حاوي وحين أبا هنا مركب بيش بركة سنة رمضان إن جوجنو فريضة نحن ذا يدعيسو إنه آد وفائدة سنة ومحوها فضل جاس إنه كفائدة سنة آد بعد ما هتسنتين إلهي سبحانه وتعالى وحن ويدي سنة إنه فضل جاينا وافجيه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.